السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب دواسو هم بليانينا دمانت لنا هاي هم بليو سيجارة وحنو هم بليانيا تيمكا iyo macallinkooda iyo runtii alla intii ka shaqeysay iyo xiriirka iyo cid kasta oo runtii gacan ka geysatay inay dhalinyaradaasi soo aruurintoodii hore soo tababaridoodii soo safrintoodii ilaa yani dhiirigelintoodii cid kasta oo ka qayb qaadatay inay koobkaas gacanta kusoo dhigaan runtii oo mahad celinaynaa. aniga habeen dhaweyd waan kulanay dhalinyarada iyo macallimiintooda waxaan ku yiri haddaad soo guuleysataan abaalmarin weyn aad leedihiin marka waxaan rabaa in mar kale ku celiyo abaalmarintii waa naga diyaar. waxaa kaloo u sheegayaa ta soo socoto ee Algeria lagu qabanayo taas hadday soo guuleystaan ayadoo abaalmarinba lama dhihi karo magac kale loo bixinayo waxaas ku leeyahay runtii ciyaarta in lagu guuleystay markii dhinaca laga fiiriyo waa ramzi waxa laga yaabaa inaan laga badan ka helayn inaan xolo ku helayn waxaan ku helayn laakiin waxaan ku helaynaa wax muhiim ah waxaan ku helaynaa in calankeenu uu kor u qaadmo ummadaha dhexdooda waxaan ku helaynaa inaan sharaf yeelano waxaan ku helaynaa inaan magac yeelano ku helaynaa sidaa darteed micno ka weyn in ciyaar lagu guuleysto ayay itusinaysaa aniga waxa dhacay micno ka weyn ay leedahay waxay itusinaysaa ummad dhimatay oo soo noolaatay qofku hadduu dhinto sooma dhinto laakiin aniga hadda waxay itusinaysaa inaan soo noolaanay oo aan dhimashadii ka soo noqonnay oo aan soconno ayay tusinaysaa. waxaa bilowday xilligii guulaha waxaa dhammaaday xilligii guuldarrooyinka iyo jabka ayaa soo dhammaaday. caawa waxaan u dabaaldegaynaa in dhallinyaradeennu ay koobkii soo qaadeen ay ku guuleysteen waxaan halkan runtii iyagana uga hambalyeynayaa kuwa ayaga la leeg oo ayagana ku guuleystay koobkii amniga inay qaadaan oo cadowga jabiyaan. marka guuluhu waa guulo waa xilligii guulaha waa saan sheegay guul darradu way dhamaatay. dadka Soomaalida ah niyad jabkii waa dhamaaday waxaa bilowday niyad wanaagi waxaa bilowday Soomaalida inay kor fiiriso waxaa bilowday qabkii saxda ahaa ee Soomaalida inuu soo noqdaa bilaabatay. hadda qabku waa sidan waa inaad guul dul fadhidaa qabla dhaha inaad cadowga ka adkaataa qabla dhaha kan hadda cadow kuma tilmaamayo laakiin kan ka hadlayo waad garanaysaa. marka wiilasheena caawa ku jira dhufaysyada ee runtii cadowga maalmahan dhan ka kaxaynaya waddanka ka xoreynayay hooyooyinka runtii daba taagan gabdhaha Soomaaliyeed ee daba mashxaradaya odayaasha ayagoo hor socda dhimanaya oo ku shahiidaya waa marxalad cusub oo waxaan galay ah tii hore ka bedelan oo ah marxaladda nasriga marxaladda guusha iyo marxaladda Soomaalinimadii saxda ahayd oo soo noqotay. marka taas weyn bay tanina qayb ka tahay. marka waxaan leeyahay ciddii Soomaalida meel kastoo joogto waan u hambalyeynayaa waxaana leeyahay inta dibadda joogta iyo inta dalka gudihiisa joogtaba jabkii waa dhammaaday qixi waa dhammaaday ya waxa weeye magac xumadii waa dhammaatay waxaa bilaabatay beesh cusub ayaa furmay oo kii saxda ahaa ah. sidaa darteed niyadda hala dhiso waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis wiilasheena yararkaa waxay horseedeen hadda isku xilka dadka Soomaaliyeed waxayna tusiyeen inay dadka Soomaaliyeed walaalo yihiin meel kasta ay joogaan. waxaan ogahay inay in badan oo kamid ah taageerayaashu inay ka imaadeen halkan inay ka imaadeen inay qaarkood diyaarada ka soo qaateen jigjiga
oo ay taageerayeen. Waxay ku tusinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad walaalo ah oo wada dhashay oo ay ka dhaxayso dhaqan iyo dhiig iyo dhacaan intaba uu ka dhaxeeyo oon meel lagu kala baxayn. sidaa darteed ciyaartan yar iyo guushan yari waxay soo celisay iyadana dareen hore oo Soomaalinimo oo walaalnimo oo jiray bay dib u soo celisay. marka ciyaartu waxyaabaha ay leedahay ay kamid tahay inay dadka midayso, inay walaalayso, yani dareenka qofka caadiga markuu ka baxo waxyaabaha kale ee uu aad u dareemo oo xamaasadu kacdo, waxaa soo baxa qofka naturekiisa wuxuu ahaa soo baxa. marka inaad Soomaali ahayd marka qofka dhab ogtahay shalay dadku meeshii taagnaayeen xamaasada meeshii ka taagan tahay waxay ku tusinaysaa in waxaa kacay dhiigoodii waxay u noqdeen originalkoodii Soomaalinimadoodii. marka xuduudii oo dhan baa dhamaaday, wixii kale oo dhan baa ka dhex baxay. waana midaas midda aan doonayno inay Soomaali ay noqoto walaalo ah oo wax wada leh. waxaan ugu baaqayaa mar kale dhalinyaradan habeenkii aniga waan la dardaarmay oo waxaan ku yiri dhowr shay, waana midaan aniga aaminsanahay in lagu guuleysanayo. midka ugu horeeya waxaa weeye waa in ay iyagu ismaqlaan oo ay walaalo ahaadaan. waa in ay dhaqanka wanaagsan ay qaataan. anagu dad baan nahay Soomaali, muslimiin baan nahay, marka waa inay ducaystaan, waa inay salaada aad ugu ilaaliyaan, waa inay quraanka akhriyaan, waa inay Soomaali noqdaan. Soomaalinimada wadata waxaas. Soomaalinimada iyo muslimnimadu way isdhex galaan sidoodaba, waa isku mid. Soomaali hadduu yahay waa muslim. marka dhaqankaas aan cayda aqoon, aan akhlaaq xumada aqoon, oo aan xaasidnimada aqoon, oo walaaltinimada iyo ixtiraamka ku dhisan ayaa la rabaa inay dhalinyaradanu ay qaadato. dan markaas guusha ay weydiiyaan way guuleysanayaan. waxaa laga rabaa inay waalidiintooda ay ixtiraamaan oo ragga tababaray iyo gabdhaha ba tababarayaashooda iyo macalimiintooda inay ixtiraamaan laga rabaa, way ka dambeeyaan oo ay dhageystaan, iyaga ay dhageystaan. idan intaasna waa laga rabaa. waxaan ugu baaqayaa aan kusoo gabagabeynayaa runtii dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waan ku celinayaa waxaa bilaabatay sanadihii guusha, guul daradii baa dhamaatay. niyadda hala dhiso. Soomaalidu jabka waa inay ka baxdo, waa inay ka baxdo kala qoqobnaanta, waa inay ka baxdo cuqdada, waa inay ka baxdo wax kasta oo kala dhex gala. Soomaali heshiis waa inay sheekadu ku soo ururto. marka wax walba waan ku guuleysanaynaa. markaas waa la hubaa inaan ku guuleysanaynaa haddaan anagu istaageerno. haddaan maxaa jira hadda macalimiinteena waa arkaysiin, nin Soomaaliya tababaray, nin Soomaaliya geeyey, nin Soomaaliya kusoo guuleystay, koobkii soo qaatay. waqti waxaa laga yaabi lahaa inayna dadkeenu markii hore saad isu aaminsanayn, laakiin hadda mar haddaan is aaminay halkaas ayay sheekadeenu maraysa. marka waan guuleysanay, cadowgiina waan ka guuleysanay oo argagixisadaha. ciyaartii iyo meeshii dadku isugu imaaday iyo civilizationka adduunka isdhexgalkiisiina waan ku guuleysanay. guul calaa guul baan idin leeyahay mar kale. congratulations qof kastoo Soomaali meesha soo joogo.